baraha bulshada baryahan waxaa haysta waa erayga shiidka ka jiro magaalada Muqdisho ayaa waxa ay tilmaamayaan dhalinyaro badan oo baraha sida Facebook markaad gasho shiidkay tilmaamayaan. Sidoo kale markaad TikTok soo gasho waxaad arkaysaa fiidiyoyaal ka hadlaya shiidka ka jira magaalada. haddaba adigii haddaa saas dareemaysid ka waran dadka barakacayaasha ah, qaxootigii iyo dadka masaakiimiinta ah ee aan maanta taleefana haysan, baraha bulshadana aanan kusoo bandhigi karin fikradooda dhinaca shiidka ah. taas waa in laga fikiraa. number 1, Soomaaliya waxaa ka dhacay dhowr jeer abaarooyin kala duwan, bal abaarahaas waxay uga bixi jireen Soomaalidii hore. waxay ahaayeen dad iskaashato walaalo ah, aanan qabyaalad ku dhaqmin oo iskaalmeeya. ama run ahaantii waxaad arkaysaa berigii abaaraha ay dhaceen in dadkii shacabka ahaa oo iskaa wax u qabso intay baxeen beeraha tageen soo faleen masagadii lasoo saaray. haddaba kilibyadan aad hadda daawanaysid waa kilibyo sax ah oo ay dadka Soomaaliyeed u tagayaan, isku caawinayaan, beerihii wada falanayaan. Soomaalida markay abaar ka dhacdo waqooyi waxaa loo soo daldali jiray dowladii berigaas jirto koonfur haddii abaar ka dhacdana waxaa la geyn jiray goob kale oo ayaga laftigooda wabigii u dhow, biyihii leh, beera ah, lays caawiyo, lays garab qabto, ayagoona dadka markaas wax qabiil ah ama aan qabyaalad ah aanan ku wada dhaqmi jirin. balse maanta way ka duwan tahay arrinta taas maanta waxay uga duwan tahay ayaa waxaa ah maanta magaalada markii ay shiid ka jirto ama abaar dhacdo, dad Soomaalinimo u kaco waa la arkaa, balse way yartahay run ahaantii. waxaana maanta kula talinahaa dhalinyarada iyo dadweynaha taleefanada haysta iska yara dhaqaalaysan in dadka ay ku tabarucaan, lacagna siiyaan, sadaqana dhiibtaan. maanta waa maalin kale kana duwan shalay. waa anigoo Nabiil Xasan Nuur ah. soo dhawaada barnaamijkana sheergareeya, gaarsiiya dadkaad isleedihiin run ahaantii dadkooda wax u qaban karaan, hala gaarsiiyo. like-ta iyo commentigana waxaad noogu sheegtaa sababta keentay shiidka.